kulanti wacan saaxiibayaal halkani waa channelka wararka haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar haddaba xogta aan maanta idiin hayno ayaa ah fanaanadii fanka ka baxday ee Xamda Queen ayaa laga hadlayaa guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland sida Hargeysa, Burco, Boorama ilaa Berbera taasoo la leeyahay fanaanadu ninkii ay fanka uga baxday ayaa guurkii uga baxay isla markaasna waxyaabaha ay ku haminaysay ee ganacsiga iyo arrimihii kale ayay ku hungowday wararkan ayaa maanta ilaa xalay laga hadlayaa guud ahaan Soomaaliland sidoo kale waxaa hadalhaya dhammaan fanaaniinta ay uga tagtay saaxadda fanka kuwaasoo qaarkoodna ay ku maadeysanayaan qaarkoodna ay ka xun yihiin arrintan ku dhacday Xamda Queen oo la sheegayo in ninkii ka saaray fanka oo waxaa jirtay barigii fanka ay ka baxday oo la wada ogsoon yahay haddaysan ogeyn dadka oo dhan in fankaasi ay uga baxday ninkii guursanayay waagaas oo u ballan qaaday inuu ka baahi tiri doono wax walba oo ay adduunka uga baahan tahay isla markaasna uu ka codsaday inay iclaamiso inay fanka ka baxdo taasoo sababtay in Xamda Queen ay la hadasho idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA taasoo ay si cad ugu sheegtay inay guud ahaan ay fankii ka baxday waxaana sheegtay in ay u mahad celinayso ilaaheedii ka madoobeeyay fanka isla markaasna ku dhaliyay inay iskaga baxdo fanka balse warar isa soo taraya ayaa sheegaya in fanaanada Xamda Queen ay hadda ku soo laaban doonto fanka sabab jira awgeed waxaana la hadalhayaa in ninkii waagaasi fanka ka saaray isla markaasna u ballan qaaday inuu wax walba siin doono oo ballamihii iyo axdigii ay dhigteen uu uga baxay wararkan ayaa guud ahaan laga hadalhayaa social media sida Instagram-ka, Facebook kuwaasoo lagu sheegayo oo dadka qaarkoodna ay ku maadeysanayaan gabadhan hadda iskaga baxday fanka oo ma dhihi karno waa fanaanad sababtoo ah waxay sheegtay inay fanka ka baxday isla markaana ay ku faraxsan tahay inay fanka ka baxdo lamana dhihi karo fanaanada Xamda Queen sababtoo ah iyada afkeeda ku cilaamisay inay fanka ka baxdo balse waxaa la sheegayaa in hadda ay ku qasban tahay inay ku soo laabato fanka sida ay sheegayaan ilo xogogaal ah oo ku dhowdhow fanaanada Xamda Queen oo sheegaya in gabadhaasi Xamda Queen hadda ay ku qasban tahay inay fanka dib ugu soo laabato sabab jira awgeed maadaama ninkii waagaas fanka ka saaray uu hadda ku qasbay inay fankeeda iskaga laabato maadaama ballamihii isaga iyo iyada dhex yaalay uu uga baxay wararkan oo marba marka ka sii dambeeya isa soo taraya ayaa qabsaday baraha bulshada dhowrkii saac ugu dambeeyay inkastoo laga hadalhayo magaalada Hargeysa ayna hadalhayeen fanaaniinta ku sugan sida xidigaha geeska oo qaarkood ku xuma arrintan ku dhacday Xamda Queen iyadoo arrintan ay u sheegtay markii hore Cabdiraxmaan Caydiid isla markaasna ay la wadaagtay xogta balse dhammaan ay wada gaadhay xidigaha geeska iyo guud ahaan Soomaaliland oo haddana ay soo wada gaadhay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed wixii ku soo kordha wararkan kala soco channelka wararka sidoo kale subscribe dhaha muuqaalkanna like saara siina share gareeya waanad ku mahadsantihiin sidaad mar waliba noola socotaan God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been
tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.